السلام عليكم أصحابتي سو دوادا waxaan wada muuqaal in badan la weydiiyay ka raali noqda markaan ma u jeedin kaamirada in zoom ku jiro haysan scan ma ka wabo haysan scan ابو رون برسكده ميشو كون حتى تاني تنبي كل دوين لبدان هايسانس لبدان توا أفرتن كون هاي توا أفركون انت قبل احسنتها مين تنا كوي تنا وين 200 لتر توا 150 something كون كان ملكم هيك ليهين كون الجيوا كان كون الجيجن الجيجا واسدتني شنكون واو أفرتني شنكون هاي سانسس الجي سديتني شنكون كوكردا نوعين ورخيصا كوكردا أنا 50 باي 50 بدي يرى أقول هذا نوع يدا واوين gadaal ka toosin doona muuqaalka insha Allah marka hore uma jeedin waxaan idinkaga bilaabay qaybta elektrooniga maadaama uu muhiim yahay meeshaan horta qasaarad lama isticmaalo laakiin talaagada iyo kuukarka aad muhiim u yihiin soo jeedeen talaagadaha idinkaga soo bilaabay talaagada horta ugu macquulsan talaagadan hadda horteeda ka muuqda waaye dadka badan isticmaalaan haysan sisaana Kenya aad looga isticmaalaa qiyaas ahaan sayska ugu macquulsan waa kuwan hadda idin muuqdo ee dadka aad u isticmaalaan waxay u dhaxaysaa qiimaha 45,000 ilaa 55,000 adiga wasi u kala waxyar u waaweyn yihiin waaye waa noocyada Hisense kala dhaho LG-gana wuu yaalaa LG-ga aad u qaali u yahay sidoo kale intana Samsung ayaasho ayadana qaali waaye laakiin talaagadaha aan idin sheegayo waa talaagada aanan yar ahayn waaweyn ahayn dhinaca kuukarada daa u gudbo kuukarada horta meeshan waxay u badan yihiin gas laakiin waxa jiro kuwo oo hal qayb oo koronto ah bis leh kuwo wada korontaan way jiraan laakiin aad looma isticmaalo korontadana ma aha kuwii dhalada ahaa ee taqaaneen ee waa kuwa birta ah qiimahana waxay u dhaxeeyaan 35 ilaa 50 ilaa 90 ay sii jiraan hadii kuukar aad weyn arabtid laakiin waa 35 ilaa 50 kun laakiin 45 kun kuukar macquul ah oo fiican waa ku hel So the Kenyan maybe is the cheaper. Yeah, this one 107. 170. Yes, this one's 95,000. 95,000. meeshaan hadda aad jooga carwo waaye labadaas sariir isgarab taalo midna Kenya lagu sameeyay midda alwaaxa runtan ayada qurux badan midda kalena waa Chinese ay u dhahaan midaas Chinese-ka waa 170,000 u dhahay midda Kenyankana waa 95,000 sariirtan aad u qurux badan qiimeed waa iloobay laakiin waa Kenya ayadana noocan way jiraan sariirahan ayagana waa Kenya lagu sameeyay halkan waa fadhi oo ayagana wadanka lagu sameeyay sa u jeedaan waa fadhi cadeys isla noocoodii oo hadana gray qiimaha fadhigan wuxuu dhahay waa 95,000 laakiin ugu dambeyn waxa idinka siin karaa u dhahay 90,000 waa fadhigan hadda idin muuqdo waa local wadanka lagu sameeyay The grey ones. Grey one is 210,000. 210,000. Yes. This one. Well, this one is much expensive. This one is expensive. 8-seater. This one is 8-seater. qiimaha oo hadda ka hadlaayo waa fadhiga gadaashas ka muuqdo oo weynka waa 8 kursi asagii noociisa kala dhinacan yaalaba hadda u jeedaan qiimahooda waa 210,000 laakiin inta badan dadka wadankan degan waxay iibsadaan fadhiga wadanka lagu sameeyay meeshan hadda carwo waaye meelo kale inta aan carwo ahayn idin geey doona oo ka sii raqiisan iyo meelo kale sii jiro oo aanan tagin oo alaabaha lagu sameeyo ayagana aad raqiis u ah wili carwadii ku dhex jirnaa miiskan waa miis qado oo dhale inta badan dibadaha waa laga yaqaanaa Turkish waaye qiimihiisa hadda waa iloobay laakiin waxaan qiyaasayaa inuu dhahay 70,000 maadaama uu 6 kursi yahay $100 intuu yahana waxa ka arki kartaa shaashada kuwan marka lagu kacsana meeqay noqonayaan gabdho badan haysta kuwan aakhir oo abo karaamada si aan information sax ah u siiyo aakhir 70 $70 meeqay noqonayaan markaas $500 miya wala kun laakiin abo carwooyinka adinka mar walba ka raqiisan sama
ها أديك صار سمستين meeshaan waa meelaha ka jaban carwooyinka meel ka mid ah laakiin waxaa jiro ayagana meelo ay kenyaanka alaabta ku sameeyaan oo xoogaa ayagana kasii jaban kuwaan. oh my god kan kursiga aroosyada loo dhigayo hoolalka u egyahay kursigan aad uu ii cajabiyey qiimihiisa waa 200,000 alaabta masaarida miyaa mise والله guryaha lacagta laha la dhigaano alaabaha cidaha lacagta la ee dhigtaan waay haddana waxaan usii gudbeynaa qeybaha joodariyaasha iyo alaabaha kale oo guriga u baahan yahay. aboobe joodariyaasha sirraha waaweyn miyaa kuwan ها باي واقوان okay kan buluuga waa noor Kenya maano وكينيا ها لكن ده لو في هذا kaas ugu originalsan meeqoon kana kaas abo oo sax bareys sax ah عايز 20 سنه aakhirkiisana آخر 20 سنه على سنه u dambeeya واتنيج kan ugu fiican waa 23 aakhirkii kan ugu yani xoogay raqiisan رقيقين او اسكو في عنه ها قبل لا بكره kan waay marka buluuga ها بلوغا 82 waay اخر marka kuwana maxay noqonayaan كوان nafri bar waay kuwana kuwa ciyaalka waay qiimaha joodariyaasha caruurta waa 6,500 ilaa 7,500 kuwa ballaca weyn leh. كان عمل فيري bira ku jiraan ها okay تبني شنكون 15 u yar تبني افر على سنه aakhirka meeshaan waa meesha isli lagu gado joodariyaasha hadda aan joogay joodariyaashana qiimahooda waa sidaas saan qiyaasayo guud ahaan isli sidaas way qiimaha joodariyaasha caruurta iyo dadka waaweynba. roogana caashaqay kana caashaqay noocyadaan saysaskan yar yarka u shaqeey كوان عمل 3D كان ابو في عن وتركيش تبني كوكو 12 waay 9 ani ku ogaa 4 bilood 6 bilood ka hor سقال كل واقوان miya كان عمل والله تني ساينس okay سقال كل تا على سنه عبينه okay roog marka ugu raqiisan wuxuu noqonaa 15 oo noocana وينيس ma waxaan ka wadaa 9 aan ka wadaa ugu raqiisan kuwaas ما كانوا يقول رقم سنوات في كواجرة لكن كواليتي الكمية okay كوان واس بدل كلر oo kana isma bedelaay laakiin كان حمل واس بدل كوان جريك هذا وعقدتوسا براون عمل marka ma fiican mise ما fiican في عني زي لو في عني ka oo وين هو طبني لحكم 16 ugu qaalisan 4 ugu raqiisan ilaa 9 rooga fiican كواليتي الكمية هنا okay زي كافو هاي أنا بدنينا go سرير كانوا كله كوان وافر كل شيء بقول بيت كذا أنا بستيق جلاين كاري بستاي كلا يان جو انا وطال عفر بركمان واي أفر بركين يجو يا بسته كان أمرك اسكو برسمية كان كذا ها كوان وافر كل بيت كذا كوان عمل كان عمل وافر يسن أوكي كوان ولا غير ما kuwan waa go-yaasha sariiraha waaweyn go-ayaal caruur way jiraan laakiin qaali saas ma aha sidoo kalena dadaaba garbaha ku wareejiyaan oo lacag yarkaa siinayo. jaalahan horta qurux kaliya baa laakiin ani kana ka helay qaybta daahyada imaane akhyaaray waxaan isku dayayaa inaan soo kokoobo alaabta oo dhan ay idin tuso ilaa jikada ay idin geeyo. halkan waa dukaan daahyada kaliya lagu iibiyo oo dhowr nuuc yaalaan oo kala qiimo ah sidoo kalena daahyada jidkana waa lagu kan gadaa. tusaale ahaan gareygan ha ha كان حسينا لو كنا اللحب غلوة isaga dhan ما يمتر كيس سلك متر hey maxaasas qaali دولار غلط انت لوسو بدو عند okay daaqadan meeqa mitir waa marka محمد سنبل maya inta okay waa cabir fiican waaye umaleena nan isku baras ma isku eegina تو لو سدح عفر تنسلين mitirkii waa $15 camal. والله ما كاين دران ما شاء الله كان خلق يجي فوق يعني ما شفت والله يا جيف لا خلق جيف كحال لو ترك حاجة عجيب كان فريقة كحيران لها أنا ما شفت والله ما ساعتين كم سيلفر كانوا من بلو كان قريب بلو كريا كان كروس السسرة absolutely واثقة أن نعرف الدين محمد
dukaankan oo kale haddaa daah ka iibsanaysid mitirkii waa $15 ilaa $8 kuwa raqiiska ah laakiin sidoo kale kuwa kasii raqiisan ayaa jiro waxyaabaha decorationka ana iska soo duubtay qayb kamid ah ana soo iibsaday nafteyda qofka markuu wadan kale ka soo guuraayo oo wadan cusub soo dagaayo oo guri dhan oo sharaxanayo kama bilaabayo waxyaabahan oo kale ama daruuri ma arkaayo haduusan ahayn reer cusub oo hadda la dhisaayo laakiin hadaa tahay family soo guuraayo inta badan alaabaha daruuriga dadka iibsadaan sida jikada alaabteeda iyo sariiraha joodariyaasha waxyaabaha fadhiga TV-ga kadib ayay waxyaabahan guriga tartiib u keensadaan laakiin bustayaasha sariiraha joodariyaasha talaagadaha iyo TV-ga waxyaabahaas iyo jikada maacuunteeda laga bilaabaa qoysba qoysku ka weyn yahay ay ku xiran tahay alaabta u baahan yahay laakiin qoysaska dhexdhexaadka sida 7 qof 8 qof ka kooban qarashka uga baxaya alaabta guriga dhan waxay noqon kartaa $2,500 ilaa $3,500 waa sidoo qofka asaga alaabta u iibsaday alaabta uu doorto inuu iibsanayo sida inay wax kasta good quality ku yihiin waxay noqonaysaa qaali hadii aad isku dhex darsatidna waxay noqonaysaa normal hadii aad wax aad u wada jaban araadsatidna waxay noqonaysaa raqiis iyo qofka tartiib wax u soo iibsada bustayaasha caruurta waa kuwaana waxay u dhaxeeyaan $1,500 oo shilin ilaa $2,500 sidoo kale bustayaasha dadka waaweyn $3,500 ilaa $5,000 ay u dhaxeeyaan yacni wax walba quality ku xirantaa inta gaariga saarnaa waxaa soo agmara meelihii hadaa idiin sheegayay ayagana furnitureska lagu sameeyo ee Kenyaati ku sameeyaan sidaan u eg yihiin laakiin alaab fiican ay sameeyaan gabagabadii videoga ayaa soo gaarnay jikada alaabaheeda maana soo duubin video kama soo qaadan sababtoo waan garanayaa qiyaasta alaabta jikada jika oo dhan alaabteeda waxaa kugu filan lacag $200 hadii aad ka badan u baahatid uma baahanaysid ilaa $250 complete alaabta jikada tan labaadna alaabta hore idinkugu sheegaba guriga marka hore xoogaa fiican u baahan yahay kadibna ayadaa tartiib jikada iyo meel walba usoo buuxsamayo guriga dhan oo hadhowtay alaab ka daadinaysa arki doontaa marka uma baahanin inaad hal mar wax walba soo raratid laakiin alaabta jikada $200 ilaa iyo $250 aan dhihi karaa everything oo jiko oo maacuun saxamo sidadka digsiyaasha ku helaysaa muuqaalkan juhdi badan geliyay please asxaab u baahan jirto ama walaalo u baahan oo dalal kale ka soo guurayaan oo qarashka isku dhufsan lahaayeen xisaabta gaarsiiye oo share gareeya like na saara